السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا زينب محمد حاجي زينب لبدقح waxaan salaamayaa dhammaan shacabka Soomaaliyeed meel kasta ee dunida dacaladeeda kaga nool yihiin maanta ay tahay bishii 13-keedii sanadka 2018 waxaan idinka soo salaamayaa magaalada Edmonton Alberta ee dalka Canada waxaan nii rajaynayaa khayr dhamaantiin meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtiin aniga iyo familkeyga asxaabtayda iyo inta aan ka warhayo dhammaan waan wada nabad qabnaa waan fiicannahay idinkana Ilaahay waxaan iga rajaynayaa inaad bash barwaaqo ku noolaatiin noloshina inta idinka hartay ilaahayna uu khayrka idin waafajiyo walaalayaal waxa igu kalifay maanta inaan videogaanayta soo duubo waa arin ku socoto heesihii aan ku jiri jiray iyo shaqadii aan hayn jiray inta muddo 4 sano ka hor walaalayaal sidaad uga warhaysiinba waataan aniga ku shaqayn jiray heesaha iyo aan ku jiri jiray hase yeeshee waxaan idin sheegayo idin ogeysiinayaa inaan heesihii ka baxay July 4teedii 2014 markaan Alberta soo guuray Edmonton anigoo markaas degan Edmonton oo degan muddo 2 bilood ah ayaa waxaa layga cazumay dalka Sweden magaalada Malmo xaflad oo Soomaaliya Day oo maalinta Soomaalida loo dabaaldegaayo ayaa layga cazumay dad kaleetan waa laga cazumay iyagana oo ay ka mid tahay maamo Hibo Maxamed muddo wiigahan ku soo maqnaa wiigaas anigoo maqan ayaa waxaan Ramadaanka iigu soo galay meesha waxaan soo maray magaalada Copenhagen oo markii horeete aan ahayd meesha aan ka degay oo diyaaradda kaga degay oo haddana aan diyaaradda ka soo qaadanayay ayaa gabdho asxaabteyda oo gabdho yaryar oo gabdho Soomaalida jecel oo wadaniyiin ah cazumaad afur ah iigu sameeyeen intaanan soo dhoofin kadibna ilaahay amarkiisa maalintaas ay tacashada la fadhiyay oo afurka ah ayaa ilaahay qalbigeyga soo galiyay inaan heesahan iskaga tawbad keeno waa soomanaa maalintaas afurka ii sameeyeen maalinta ku xigtana waan soo baxay markaan imaaday Edmonton Alberta caruurtayda iyo iigu horeysay labadeeda wiil iyo gabadhayda ayaan u sheegay oo ku dhaahooy aniga heesii waan ka tala baxayaa ogaada heese inaan ka tawbad keena ayaan go'aan ku qaatay dadkana inaan u sheegaa raba ogeysiiyo waxay ugu dhaheen iyagoo markasta ii dhihi jiray hooyo heesaha iska dhaaf special gabadhayda iigu dhihi jirtay ayaa waxoogaa cabsiyaa gashay isleeyihiin haddaa soo guurteen 2 bilooda meeshaan degantihiin hooyadiina waxay ku shaqayn jirtay weligeed heesahan uu ahaa oo idinku sabood gareyn jirtay inkam idinka soo geli jirteen wajigoodaan ka dareemay waxaan u sheegay hooyo waxaan ku dhahay ilaaha irsaaqada haayo wadankaanaytina ilaahana keenay ilaaha kasina idinku dhalo hadda inaan soo guuray idinka dartiina oo soo guuray idinka jecel meeshaan anoo shaqay wax kasta haysta oo even shaqo haysta organization ka shaqeynaa mideenta la dhoo idinka igu qasabteen oo igu dhahdeen hooyana keena hal meel aan ku noolaana meeshaas aan u shaqo doonan iyo waxbarasho dartiina u imaaday haddana ilaahan taladeena saaranayna ilaahana na siinay irsaaqad ilaahana magantiisa ku jirnaa waxba ha ka walwalina hooyo aniga waa ka gaar go'aan waanan u sheegaya ummadda maalintii ay ahayd 4 maalintii koowaadaan imaaday 2 bari kadib maalintii 4 July 2014 ayaan Facebook-gaygan ku soo qoray oo Zeynab Cumar iyo Zeynab Labadagax oo ummadda kula soo share gareeyay hadda waxaa laga joogaa 4 sano oo wax yar dhiman sanadkaani igu buuxsamaysaa July ayay igu buuxsamaysaa 4 sano dibna uma fiirinin umana darsanin alxamdulillah shukr rabbil caalamiin mana raba inaan ku noqdo waxa igu kalifay inaan videoga maanta soo duubo weli waxaa la igu hayaa fanaanadii weli inboxkayga ayaa dad ii soo galayaan waxay leeyihiin fanaanadii heesahaagan taageernaa aadan ku taageernaa dadka marka aniga inboxka kulama hadla dadkaan garanaynin badanaa waxaan u jawaabaa laakiin dadka heesaha ka hadlo oon u sheegaa heesaha inaan iska dhaafay marka videogan waxaa idinku soo duubo walaalayaal maanta aniga ma awoodo intaasoo kumanaan oo Soomaali ayaa ku xiran page-kayga iyo profile-kayga Zeynab Cumar inboxkayga ii soo galayaan dadkina 101 qof walba kali uguma sheegi karo waxaan idinka codsanayaa oo idin sheegaya walaalayaal heesaha dadkii iga download gareystay oo gashaday akaano oo viewers iyo waxaasay ku raadinayay waqtigii way dhamaatay oo Zeynab Maxamed Xaaji Zeynab Labadagax waqti heesahii way ka hartay dad fiirsanaya iyo viewerskana wax ay idin taraysa male viewers intii hore aad soo hesheen waa soo hesheen dadka markaynan active ahayn ee businesska ku jirin oo ayaga ee markaas ay shaqada wadin
dad yar waay dadka fiirsanaya dad badan ma aha mar walba dad cusubaa socda iyo dadkaasaa lagu mashquulsan yahay walaalayaalow dadkii iga duubtay oo akaanadooda facebooka gashadeen idinka ma iska leedihiin productionkiina ma aha lacag ma idan ka bixinin aniga marka hore idinkuma haysanin idinma daba soconin hadda laakiin aniga waan ka haray dembiya igu socdo waay idinkana dembiya idinku tahay aniga raalli idinkagama ihi teeda kale maxaa la dhahaa ma rabo inaan aniga dacwo soo furo oo facebooka youtube-ka I mean intaan aan la xiriiro aan account by account aan aniga soo report gareeyo oon dhaho waxay ugu haystaan aniga heesahayga meeshay ugu haystaan ana raalli kama ihi idinkana productionkiina maaha mana u haysatiin maxaa la dhahaa contracts oo iga haysiin oo ila gasheen oo ku haysan kartiin sharci ahaan male aniga ma raba inaa aniga aan isku wareerno oo anigana aan ku mashquulo idinkana waxa ilaahayba raali ka ahayn qofkii lahaana uu ka toobadkeena uu raali ka ahayn aa meesha ku haysatiin dadkiina shacabkiina lagu marana abaabiyo ee weli u haystaan inaa aniga weli aan ku jiro anigana iima roona idinkana idiinma roona marka walaalayaalo waxaa idinka codsanayaa inaa videoyaashaydii aa meesha ku download garaysateen aniga laba dhagax muusiga qabi jiray account youtube ah waan iska delete gareey laakiin kuwa idinka qaadateen ayaa weli meelaha yaallo ummadina ay weli u haysataa marka shacabka Soomaaliyeed meel kasta dunida dacladeeda ka joogtiin waxaan idinka codsanayaa heesayga inaan la dhageysanin dadka akaanada gashtay inay iga saaraan dadka telefishinada ku haystay inay iga heesayga ka daarin telefishinada ka af Soomaaliga ku hadlo production aniga aan ii sameeyay markaan tagay jigjiga ayaa ii sameeyeen DDSI ayaa ii sameeyay production iyadana waxaan ka codsanayaa production kaasayta ilaahay wajigiisa inaa iskaga daasaan oo iskaga tuurtaan oo la iga daarin meesha marka telefishinada kale Universal Home Cable iyo kuwa kale oo badan kulli waa ka wada codsaday marka walaalayaalo codsiga waa codsi ilaahay wajigiisa idinka codsanaya mar rabo maalin walba dad inay soo dhahaan fanaanadii heesaha gaan taageernaa inay ii soo galaan inboxkayga inay facebookayga korka iigu soo qoraan in wax aan ka tagay anigoo ilaahay wajigiisa ugu tagay laysoo xasuusiyey maalin walba ummad kaleetana lagu maran habaabiyo ma fiicna waa idinka codsanayaa haddaad tihiin dad muslimiin ah oo dad Soomaali ah walaalahay ah codsigayga iga aqbala igana titira maxaa la dhahay aniga hooyo Soomaaliyeed oo ciyaal korsato oo ganacsata ahay maanta maxaa la dhahay dib dambana uguma noqonayo heesa dib dambana uma fiirinayo idinkana ka toobadkeena inaa heesayga dhageysatiin dadka meelaha ku haystan iga titira wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh walaalahay tihiin waxaan rajaynayaa anagoo dadka youtube-yada gashadeen oo qaateen meelaha ka qaateen barigii hore anagoo isku rafaadin oo youtube iyo codsiyo aan u qoranin inaad iga titirtiin oo codsigayga ii yeeshiin waa mahadsantihiin walaalahay tihiin ilaahay khayr ha badan ha idin siiyo intii dambi ku jirtana ilaahay dambigooda ha cafiyo maxaa la dhahay kulligeen ilaahay hana wada barakeeyo waani jeclahay waani salaamaya dhammaan wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh